kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dhacdooyin la yaab leh oo lagu arkay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ay dhawaan ka baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii deegaankaasi lagu arkay arrimo aan laga filaynin kooxda Shabaab iyo shaki weyn oo ka dhashay in kooxdu ay deegaankaasi ka geysan jirtay tacadiyo dhinaca galmada ah oo ka dhan ah dumarka ku nool deegaanada ay joogaan. dowladda federaalka oo faahfaahin buuxda ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyay ee deegaanka Masaajid Cali Guduud xilli ay shaacisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay howlgalladii maalmaha badan qaatay ee Al-Shabaab looga saaray Masaajid Cali Guduud. hogaamiye ku-xigeenka kooxda Al-Shabaab Mahad Karatay oo war la yaab leh ka soo saaray qaraxyadii ay ka geysteen Zobe isagoo ku dhawaaqay in dadkii shacabka ahaa ee ay halkaasi ku xasuuqeen aysan iyagu dilin balse rasaas ay ku laayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. qodobada kale waxaa ka mid ah xog culus oo laga helay madaxweyne Xasan Sheekh oo arrinta gobolka Gedo u xil saartay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu wado inuu dhawaan tago gobolkaasi iyo siyaasiyiinta beesha Mareexaan oo wada qorshe ay kaga hortagayaan imaatinka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo cudurdaar u sameeyay safaradiisa tirabeelka ah. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana talaado kowda bisha ee 11 ee November sanada 2022 barnaamijkan si share gareeyo dhammaan bagaarsiya saaxiibada kale ee idinkugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin in ku bilowno wararkeena. iyadoo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee is-abaabulay ay si toos ah ula wareegeen deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa maanta muuqaalo halkaasi ka yimid waxa ay markaa muujinayeen dhacdooyin la yaab leh oo Al-Shabaab aan laga filaynin isla markaana keeni karaa in kooxda markaasi aysan ku dhaqmaynin diinta markaa ay sheeganayso amaba ay tilmaamayso inay ku dagaalamayso. deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa goobihii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen ee markaasi gudaha loo galay waxaa lagu arkay dhacdooyin dadka qaar ay si weyn ula yaabeen. waxyaabaha halkaasi lagu arkay waxaa ka mid ahaa kutaabo iyo weliba sidoo kale tubaako isku dhex jira iyo qalab loo isticmaalo galmada amaba in markaasi la isaga difaaco dadka marka looga shakisan yahay inay xanuuno qabaan. Al-Shabaab ayaana isticmaali jiray agabyadaasi kala duwan. waxaa sidoo kale goobta lagu arkay maryo fara badan oo haweenka ay xirtaan si gaar ah waxaa loogu arkay maryaha xasaasiga ah ee ay dumarku markaasi qaybaha hoose ee jirkooda u adeegsadaan. arrintaas ayaana abuurtay shaki xoog leh oo ku saabsan in kooxdu ay tacadiyo dhinaca galmada ah u geysan jirtay dumarka ku nool deegaanada ay markaasi ka taliyaan maadaama kooxdu ay tahay koox inta badan awood adeegsata ciddii amradeeda ka hor timaadana markaasi tallaabo sharci ah laga qaado amaba ay markaasi dilaan. kooxda ayaa mararka qaarkood waxa ay ku sameeyaan dumarka in ay ku tilmaamaan mid ishaaradu ku dhacday amaba amiir uu ishaarooday gabar ka mid ah gabdhaha deegaanadooda jooga taasi oo iyadoo xitaa lagu meherin gabadha uu markaasi iskala joogayo ninkaas. taasi ayaana markaa kordhinaysa in Al-Shabaab markaa hadda laga sii dheeraado amaba laga cararo. ciidamada dowladda ee halkaasi la wareegay isla markaana muuqaaladaasi soo bandhigay ayaa waxay sheegeen in kooxda ciddii markii hore ka haysatay fikir ah in kooxdu ay diinta ku adag tahay amaba ay ku dagaalamayso in arrintaasi aysan waxba ka jirin balse arrimo kale ay kooxdu markaa ku dagaalamayaan. waxayna sheegeen in diinta ay sheeganayaan aysan haba yaraatee meel yar xitaa uga dhaqmin sida ay tilmaameen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee iyagu tagay goobihii Al-Shabaab markaasi laga saaray deegaanka Masaajid Cali Guduud. Al-Shabaab ayaana hadda markaa u muuqda kuwa bedelay mowqifyadoodii hore isla markaana hadda u dhaqmaya sida dad aanan wax diina markaa haysanin. dhinaca kale dowladda federaalka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Guduud kadib markii ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha kale ee howlgalkaasi hogaaminaysay ay si toos ah maanta uga soo muuqdeen deegaankaasi. saraakiil uu ku jiro General Turyare, General Tredisho iyo sidoo kale kuwa kale ayaana ka soo muuqday deegaanka oo maalmihii u dambeeyay laga waday howlgallo lagu xaqiijinayay amniga maadaama Al-Shabaab halkaasi ay ka buuxiyeen miinooyinkii ugu faraha badnaa. dowladdu waxa ay markaasi faahfaahin rasmi ah ka bixisay howlgalladii cuslaa ee toddobaadkan lagula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud kadib dagaalo u dhexeeyay ciidamada Huwanta iyo Al-Shabaab oo halkaasi ka dhacay. General Axmed Maxamed Cali Sowtreedisho oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay furinta hore ee dagaalka ayaa sheegay in Masaajid Cali Guduud oo muddo saldhig u ahayd Al-Shabaab haatan laga faramuujiyay
wuxuuna shaaca ka qaaday in halkan ay kooxdu u ahayd albaab markaasi muhiim ah oo markaa laga soo galo. runtii masaajid cali guduud dadka waxay u haysteen magaalo caadi ah, laakiin ma ahayn, waxay ahayd albaabka koowaad ee alqaacida laga galo, ayuu yidhi General Tradisho. sidoo kale waxa uu shaaciyey tirada rasmiga ah ee al-shabaab looga markaasi dilay howlgalkaas, isagoo xaqiijiyey inay gaarayaan ilaa iyo 189 xubnood sida uu hadalka u dhigay. howlgallada meel fiican ayay marayaan, khawaarijta meeshan waxaa looga dilay dad gaaraya ilaa iyo 189, halkaas waa ay ku baaba'day, ayuu mar kale sii raaciyey. dhinaca kale xildhibaano, siyaasiyiin, waxgarad iyo guddi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa gaaray maanta masaajid cali guduud, kuwaasi oo kormeer ku wada gudaha deegaankaasi. xaaladda ayaa waxay tahay mid degan, waxaana ciidamada huwanta ay isku ballaarinayaan magaaladaasi kadib markii al-shabaab duqeyn iyo dagaal looga saaray halkaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa ujeedkoodu yahay inay gaaraan ilaa iyo degmada Aadan Yabaal oo uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee kooxda al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa oo ciidamada huwanta ah ee halkaasi ku sugan looga digayaa inay ka feejignaadaan weeraro markaasi gaadma oo kaga imaan kara kooxda al-shabaab, kuwaasi oo geysan kara khasaaro markaasi baaxad leh. barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan. hogaamiye ku-xigeenka guud ee al-shabaab Mahad Karatay, islamarkaana ka mid ah dadka ugu awooda badan ee kooxdaas, ayaa waxa uu ka hadlay qaraxyadii musiibada ahaa ee ay dhowaan ka geysteen isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. Mahad Karatay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay weeraradaasi ay kooxdu halkaa ka geysatay, isaga oo sheegay in kooxdu ay weerartay goobo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. ninkan Mahad Karatay la yiraahdo ayaa si la yaab leh uga hadlay dadkii halkaasi lagu xasuuqay, al-shabaab ay xasuuqeen. waxa uu sheegay in dadkaasi shacabka ah aysan iyagu dilin. waxa uu tilmaamay in dadka tirada badan ee halkaasi ku leeday ay dhammaan markaasi sababsadeen gacanta ciidamada dowladda, oo uu sheegay in markii qaraxyadu ay dhaceen halkaasi ay ku fureen rasaas xoog leh, taas oo keentay buu yidhi in dad fara badan oo shacab ah ay halkaasi ku dhinteen. waxa uu sheegay inay jiraan dad markaasi muslimiin ah oo Soomaaliyeed in halkaasi iyagu ay ku dileen, balse waxa uu sheegay in ujeedadu aysan iyaga ahayn, balse ay u socdeen dowladda federaalk Soomaaliya. hogaamiyahan oo markaasi u muuqday mid aanan wax arxana u muujinaynin dadkaas tirada badan ee boqolaalka gaaraya ay dhibaateeyeen, ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada ay markaasi geysanayaan, sidoo kalena ay xoojin doonaan weerarada caynkani oo kale ah oo ay markaasi xoojin doonaan sida uu markaa ku celceliyey. waa hagaag wararkeena qaybaha dambe ayaad markaa kala socotaan. iminkana aynu eegno gobolka Gado iyo ra-iisul wasaare Xamse oo loo xil saaray gobolkaasi. madaxweynaha dalka ayaana u xil saaray sida wararku ay sheegayaan. xogaha aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu qorsheynayo in uu tago gobolka Gado. waxa uu la xiriiray siyaasiyiin iyo waxgarad ka tirsan beesha markaasi mareexaan ee halkaasi degta. waxa uuna qorsheynayaa inuu ka dego magaalada Garbaharey. ujeedka ugu weyn ee socdaalkiisa ayaa ah sidii markaa deegaanadaasi loo gaarsiin lahaa gurmad, sidoo kalena uu u xalin lahaa khilaafka maamulka gobolka Gado iyo sidoo kale kan Axmed Madoobe u dhexeeya. dowladdii hore ee nabadii nolol ayaa diyaarado ciidan iyo hub ku daabushay Gado muddo 2 sano ku dhowna ma jirin cilaaqaad maamul oo ka dhexeeyay Jubbaland iyo madaxda reer Gado. taliyaha nise gobolkaasi ayaa markaa fiiladiisa waxa ay ku xirneed Fahad Yaasiin iyo Farmaajo, iyadoo gudoomiyaha gobolka Gado Canjeex iyo saraakiisha ciidamada iyaguna ay villa Soomaaliya saaxiib la ahaayeen. taas beddelkeedana colaad iyo dagaal ay kula markaa midoobeen Axmed Madoobe amaba uu kala dhexaysay. ra-iisul Xamse Cabdi Barre ayaa loo xil saaray inuu isku soo dhoweeyo Jubbaland iyo reer Gado lana dhameeyo xurgufta ka dhex jirtay. waxayna wararku sheegayaan in socdaalkii Xamse Barre kadib uu Axmed Madoobe halkaasi tegi doono. wararka qaar ayaa sheegaya in siyaasiyiinta beesha mareexaan ee gobolkaasi degta ay qorsheynayaan in ay markaa ka hortagaan qorshaha uu wado ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, maadaama ay diidan yihiin Axmed Madoobe. waxa kaliya ay ku qanci karaan ay tahay in Axmed Madoobe meesha laga saaro. lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona safarka wasiirka koobaad ee dalka uu ku tegayo Gado oo lagu tilmaamay gobol la iska ilaabay marka la fiiriyo habka maamulka, dowladnimada iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee gobolkaasi uu mudnaa in la gaarsiiyo. waxaana la rajeynayaa in ra-iisul wasaaruhu arrintani uu guul ka keeni doono, maadaama hayb ahaan uu ka soo jeedo Jubbaland.
qodobkaas ayaa ugu dambeeya warkeena intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo